يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. marka shayga beentana waa shay aad iyo aad adiga ku soo noqonaya wali ahaan marka wuxuu u baahan yahay inuu shayga beenta la yiraahdo in maartay aad hay'ad ka ilaalisa inta ugu badan waxyaabaha dadka waalidiinta ma yareystaan dan ma hay dadkeena maartay qorbaha jooga iyo dadka waddanka jooga waddankeena dil shabaab ka jiray ilmaha yareeday waa qof yar waddankiisii jooga saaxiibadii raacaya meel kasta maraya iskuulkiisa loo diriyay cidna laguma baqi jirin laakiin waddankan uu ka badan yahay maartay shaqadiisa iyo harakaadkiisa iyo way ka hawl badan tahay sababtoo ay tahay waddankan oo wadamada gobolada sida xooligu ordayaan ilmaha dibadda looma aaminayo maxay ilma yaro xadidka oo kale ilmaha loogu talagalay ilaa iyo markuu ilmuhu maartaan galaaska afraad ilaa iyo galaaska shanaad galaaska lixaad oo kale maartay iskuulka mar walba ka caawinayso tagayso iskuulka markuu joogana maartay furshakin ku jira wax la yidhaahdo ama caymiska dadka inta badan waalidiintana maartay markay dibadda joogaan isna ay caymis u sameeyaan laakiin dadkeena waalidiinta inay maartay ilmaha maartay mar walba ay ka warhayaan oo soo qaadaan oo geeyaan oo maartay sidaas ilaa iyo maartay qofka maartay uu ka qangaarayo oo si markaas tabarito taa lafteeduna way raadaan xilliya iyo galaasyo loogu talagalay baa jira oo maartay ilmuhu aan maartay iskuulka u diri karin waa laga yaabaa dad badan oo maartay inuu asxaabteena oo daawanaya ku xidhan inaanay garanaynin muddada loogu talagalay ilmahaas inuu keligiis socon karo xaddi waqti sanad buu leeyahay waa inuu sanadka qofka waalidka waxyaabaha hadii leeyahay sharciga waddanka ogaataan waxyaabaha marka dad badan baa jira carruurtooda fasaxa maartay iskuulka maartay iyagoo dira waxyaabahaasna waxay ka imaan doontaa mar hadday waxba soo hajima ku dhacaan oo kalaa inaad dad noqoto qayb waxyaabaha ogaataan timeka iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay xilliga timeka oo kala inuu qofku maaragtay muddo waqti leeyahay wasaaradda caafimaadka oo kala marka waddankana joognaa ama waddan kastaa joogtaan iyadoo kala waxay leeyahay time loogu talagalay ilmuhu inuu seexdo sida sharciyanka loogu talagalay muddo inuu maaragtay maskaxdiisu nasato intaa wixii ka yar inay xaqaadi karin maartay inuu maartay fudud badan keeno in wax loo talo maartay inuu maartay oo kulooda galaaska in maartay waxyaabo laga garanayo qofka oo loo tabaro macallimiinta inta ugu badan ilmaha soo habeenkiisa kabacdi hadhow talo su'aal frogate kan ka taagan tahay maalin walba lagu qoray waxyaabahaasoo dhan maartay inaad iska ilaalisaan inaan ilmuhuna waqtiyada maartay waqtiyada oo kala la seexanayay jadwalka guriga inaan ku dhaco taa waxaan idin leeyahay dad maalin walba xilligaa seexo inaanay maaragtay iyada lafteed maaragtay hawsha dhib laakiin wax maaragtay adigana ku dhigsan jadwalka guriga yaala oo idiin qoran ilmihii inay ku dhaqmayaan aan dhaafi karin waa inaad adigu laftaada soo wasta si kale ma kaga bixi karto waxyaabahaasoo dhan waxaad adigu maaragtay liistig aad samaysatay aad guriga iyo blanka iyo systemkaad ku soconayso aad samaysato oo kaliyaad kaga bixi kartaa mana dhaafi karaan laakiin haddii aad maaragtay maalin aad tiraa 8 seexda 7 seexda 9 seexda 10 seexda waxa weeye wax adiga kusoo noqonaya dhib inuu lama qabsanaya xilliga hurdada inta ugu badan dadka soomaalida ay aragtana carruurtoodu ugu sokeeya ugu ladana xusada 10 habeen marka waxaan u baahannahay waxyaabahaasoo dhan maaragtay ilmaha inuu 10 ilaa 11 saacadood seexdo in ilmaha maaragtay maskaxdiisana la ilaaliyo waxyaabaha ka mid tahay markaa in maaragtay hurdada iyo maaragtay la socday inuu maskaxdiisa nasto lagu ilaaliyo insha allah caawa barnaamijkani Soomaali Samooda intaas laga eegyahay waxaan insha allah barnaamijyo tayana insha allah idin soo xilliyadan waqtiga hayno maaragtay faraaqada leenahay waalid baan nahay carruuraan haysanaa marka mar walba xilliyadan faraaqadan leenahay inaan waxyaaba muhiimka maaragtay asleedahay ka faa'iideeyaan idinla sheekarayno waxaan leeyahay idinkuna sii sheekaraya like subscribe iyo share insha allah waxaan leenahay walaalahay la joogan
inta nagu cusub waxaan soo dhawaada welcome waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi